أدوبتهن وطن كإثيوبيا مركز صوت الشيء ديسمبر سديدي لا تنكيدي فبراير سديدي لا فبراير جانوري ما ديسمبر شركي وهرني ومد صومال سقوط ماضو أرنتاس كبي بيسو وعن قطابنا ستوكهولم براس بليسكي وهرني لوجه هذانا ستوكهولم أساسكي فكرك ARS نا هل كاسو قبلوني أساسكي فكرك ARS مدحوينا لو نقضي وزير لو نقضي الدولة لو قبطي فكرك وقبلوني ستوكهولم مركا ستوكهولم كرامadaas bay ku leedahay ummadda Soomaaliyeed dayna aqoon ha barato taariikhda aad baan ugu faraxsanahay inaan kulana caawiyo waxaan rabaa laba mowduuc in aan idin la wadaago mar way wadankii ayaan waxaan kaga sheekaynayaa xaaladda ka jirta iyo xaaladda uu ku sugan yahay iyo asbaabaha 2004 ilaa hadda aan u la'nahay dawlad xooggan oo soo celisa karaamadii ummaddan ay lahaan jirtay iyo sharafkii ku ahayd iyo maqaamkeedii ku ahayd markaan ka hadlahay markaan waa wax caam ah dadkiina u fasiranin wax ku foorara dawladdan hadda jirta sababta waxaan ka soo bilaabay 2004 ilaa hadda maxaan u kici la'nahay waxaa jira marka inaan ogaano sababtoo dhakhtarka markaad u tagaysid waa inaad u sharaxdaa si uu ogaado meesha aad ka jiran tahay si lagu daaweeyo marka meesha aan ka jirannahay bulshadan marka waa inay ogaataa meesha ay ka jiran tahay waxaa weeye waddan hay-adda ugu sarreysa ee waddan maamusha waa hay-adda baarlamaanka la dhaho oo shuruucda wanaagsan waddanka Sweden shuruucda wanaagsan iyo midda bulshada taabanaysa iyo midda u adeegaysa iyo midda horumarka ah iyo mid waxaas oo dhan iyo midda qadamaadka bixinaysa waxaa soo qoondeeya oo soo gooya baarlamaankaas ay soo doorteen shacabkii ee masalahaya dareenka iyo rabitaanka shacabka ay ka yimideen cilada ugu weyn marka waddankeena haysta waxaa weeye habka parliamentarianku ay ku yimaadaan sida uu ku noqdo qofka Soomaaliga parliamentarian sidoo ku noqdo ayaa hab aan keeni karaynin horumar aan keeni karaynin sababtu waa maxay waxa way oday dhaqameed yaan la dhibsanin anigoo saraxadan badan ka hadlaa oday dhaqameed